my family-gayga maxay iga baratay, maxay iga sugayseen. waxaan idiin wadaa faa'iidada uu leeyahay bayturaaf my family-gayga. wax badan ay iga barateen, dhiirigelin, xigmad iyo siiradii rasuulka alayhi salaatu wasalaam. way ka dugan tahay midaan kuwii kale way ka dugan tahay. waxaan jeclaystay inaan idiin faa'iideeyo, inala wadaago faa'iidada uu leeyahay bayturaafka. assalaamu calaykum, bismillaah, tawakkaltu cala allah, laa xawla walaa quwwata illaa billahi al-cadiim. asxaabta qaaliga soo dhawaada, walaashin ikraan, channelkuna waa channelka ikraan diamond channel. channelku waa channelkiina my family-gayga. subscribe-ka, like-ta, commentiga dhac ku siiya. faraha mayda xanuunayaan, mayda daalayaan inaad igu caawisan, igu garab istaagtiin dadka igu cusub, dadka ila joogana dhiirigelinta markastaba waa xaggiina iyo farxaddu. inay farxad gelisin waxay tahay farxaddiina waa farxadayda. my family-gayga wax badan oo idinka maqnaa waa idiin soo noqday, hadda ayaan soo dhacay. waay kana my family-gayga. waxaan jeclaystay inaan inala wadaago faa'iidooyinka laga helo bayturaafka ama faa'iidada uu bayturaaf leeyahay my family-gayga. faa'iidooyinka bayturaafka uu leeyahay ama laga raadiyo ama loogu talagalay muxuu faa'iidooyin leeyahay bayturaafka. number 1 bayturaafka faa'iidada uu leeyahay. number 1 hoos u dhiga cadaadiska dhiigga. number 2 yareynta halista cudurrada wadnaha ku imaado ama wadnaha ku dhaco ayuu hoos u dhig u sameeyaa. number 3 inaa kor loo qaado dulqaadashada hagaajinta shaqada. number 4 maskaxda. number 5 taageerida shaqada beerka. number 6 kacaawinta daaweynta cudurrada daba dheeraaday ama cudurrada raagay ama cudurrada wax badan qofka soo hayay. number 7 wuxuu ka caawiyaa dheefshiidka, waxyaabaha dheefshiidka oo la soo kulmo ama waxyaabaha dheefshiidka ku dhaco, xanuunada dheefshiidka ku dhaco ayuu ka caawiyaa bayturaafka. number 8 qaabo badan ama siyaabo badan oo loo cuno bayturaafka maalin kaste. caafimaad dheeraad ama caafimaad yacni waxyaabo jirkaaga oo ka caawinayo jawaab celinta uu sameynayo bayturaafka. faa'iidooyinka uu leeyahay ku saabsan jeexjeexa lasoo bandhigay ama jeexjeexa jirkaaga ku saabsan ayuu ka caawinayaa bayturaafka. natiijooyinka uu leeyahay, faa'iidooyinka bayturaafka uu leeyahay oo cajiibka ah ama lala yaabay. bayturaafka khasanada, fitamiinada iyo macaadanta ayuu faa'iidooyin badan u leeyahay. number 9 faa'iidooyinka uu leeyahay bayturaafka. fitamiinaad iyo macaadan waxay ilaalisaa cadaadiska dhiigga, hagaajinta waxyaabaha jirka ku saabsan waxyaabaha la dagaalanto caabuqa, hagaajinta caafimaadka qalabka ama qaababka badan oo u sameeyo jirka bayturaafka. maxaa ku saabsan faa'iidooyinka bayturaafka? geedka ay ku jirto anthracosin ugu awooda badan bayturaafka faa'iidooyinka ugu awoodka badan uu leeyahay ama uu jirka siiyo ama folokis. yacni faa'iidooyinka uu leeyahay bayturaafka ugu caansan ama bayturaafka waa inay ku jirto folokis iyo acid ama fitamiinaad B iyo fitamiin D9. tan dambe waxay muhiim u tahay koritaanka hal dhinac maskaxda oo dhinac kale ka shaqaysay ama maskaxda dhinac kale ka shaqaynayso. dadkuna sidoo kale waxay weydiiyaan waa maxay faa'iidada bayturaafka. mise xidid ayaa maalintii ku jirto taasoo ku fiican bayturaafka kariyey bayturaafka yacni la kariyey ama bayturaafka ceyriinka ah. waa maxay faa'iidooyinka bayturaafka la kariyey? jawaab celin. natiijooyinka bayturaafka
7 sababood oo ah inaad cuntid bayturaaf cas maalintii bayturaaf cas maalin kaste. waxay yareysaa cadaadiska dhiigga, waxay yareysaa halista cudurrada wadnaha ku dhaco ama wadnaha soo wajaho, dhibaatooyinka wadnaha ku dhaco, problemyada wadnaha ka jiro, waxyaabo badan oo wadnaha lasoo diriso ayay ka caawisaa oo korisaa dulqaadasho. yacni qofka dulqaadkiisna way korisaa, waxay ka caawisaa qofka bini'aadanka. wuxuu leeyahay waxyaabo oo dulqaadkiisa uu ku xadidan yahay. waxayna hagaajinaysaa shaqada maskaxda. maskaxdu dhan walba ayay u shaqaysaa, wax badanayna ka caawinaysaa. waxayna taageertaa ama shaqo badan ka caawisaa qaybta beerka. bayturaafka faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay. waxay ka caawisaa oo kale daaweynta cudurrada daba jarka ama loogu talagalay inay cirib tirto. faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay. faa'iido u leh dheefshiidka. dheefshiidkana waxaa ku imaado xanuuno badan ama cudurro kala duwan oo siyaabo kala duwan ugu imaado qofka. dadka sidoo kale aad ayay u jecel yihiin inay ogaadaan faa'iidooyinka uu leeyahay bayturaafka. faa'iidooyinka bayturaafka ama hala kariyo ama ciirinka lagu cuno. bayturaafka faa'iidadiisa caruurta iyo faa'iidooyinka uu leeyahay timaha, iyo wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay beerka. wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay haweenka. waxyaabo badan ayuu faa'iido u leeyahay bayturaafka. iyo wuxuu hagaajiyaa waxqabad badan iyo isboortiga. wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay dadka isboortiga ciyaara ayuu faa'iido u leeyahay, adoo hagaajinayo isticmaalka oksijiinka, adoo hagaajinayo iyo kordhinta adeegsiga yare caabuqa jirka ku dhaco ama caabuqa jirka ku imaado. hagaajinta caafimaadka dheefshiidka, hagaajinayo socodka. dheefshiidka siduu u shaqay lahaa ama uu dheefshiidka u socon lahaa. wuxuu kaloo faa'iidooyin u leeyahay bayturaafka 13 shay oo faa'iidooyin oo cajiib ayuu faa'iido u leeyahay. inuu hoos u dhigo dhibaato kasta oo ku imaato jirka, iyo inuu hoos u dhigista hormooniska ku dhaco dadka ku dhaco sida dumarka oo kale ama si maqaarka cusub oo kale. wuxuu sameeyaa faa'iidooyin kaloo dheeriya iyo xoojinta qofka tabartiisu yar tahay. qofka tabartu ku yar tahay aad ayuu xoojin u siiyaa. yacni qofka inuu adkeysi u sameeyo, adkeysi leeyahay, waxaas uu siiyaa. iyo wuxuu dheefshiidkana uu hagaajiyaa 100% dheefshiidka aad uu hagaajiyaa. faa'iidooyinka cabid ama cunida uu leeyahay bayturaafka iyo ilaalinta dhiigga yaraanta. dhiigga hoos u dhacdo markastoo dhiiggaaga yaraado aad ayuu kaaga caawinayaa inuu dhiiggaaga oo kordhiyo. faa'iidooyin badan ayuu leeyahay bayturaafka oo ama la kariyey. bayturaafka la kariyey sidoo kale faa'iido uu leeyahay. ciirinka waa lagu cunaa, in la kariyo waa lagu cunaa, laakiin midka la kariyey faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu xoojiyo maskaxda, inaad daaweysid, yacni uu daaweeyo dhiiggaaga hadduu yaraado. hadduu waxyaabaha oo dhibaato keenaya inuu ka takhaluso jirka, inuu sunta ka saaro. wuxuu ka caawinayaa kale inuu miisaankaaga yareeyo. ma tahay qof miisaankiisu badan yahay haddana jecel inuu miisaankiisa dhimo, miisaankaaga hoos ayuu dhigayaa. wuxuuna wanaajinayaa waxqabad kaste ama nashaad kaste ama wax kastoo niyadu leedahay inaad samaysid. dadka isboortigana 100% aad u caawinayaa. wax kaste oo jirkaaga oo miisaankaaga ama xaaladahaada wax u dhibaayo, wax badan uu kaa faa'iidayaa haddii aad isticmaashid ama cunidiisa ama cabidiisa. awood ayuu siinayaa jirka iyo hortagga cudurrada. cudurrada dadka ku dhaco ka hortag kaasan uu kugu sameeyo inuu ka hortago. iyo waxyaabo badan oo muhiim ah oo laga helo
bayturaafka ayaa jiro oo inta lagu soo koobi karin, iyo haweenka uurka leh iyo caruurta iyo dad kale intaba aad ayuu caawinayaa bayturaafka, iyo ciyaartooyda aad ayuu caawinayaa, ciyaartooyda aad u anfacayaa bayturaafka. waxaa jirta maado loo isticmaal lahayo trichosodis aad ayuu ugu fiican tahay. faa'iidooyinka kale wuxuu leeyahay caafimaadka aad ugu wanaagsan yahay, cabitaankiisa iyo oranji maalin kaste haddii oo cabtid oranji yacni liin haddii aa qaadatid labadaas aad ayay u fiican yihiin. casiirka liinta ama cabitaanka liinta oo bayturaafka laiskula cabo waa aad u wanaagsan yihiin, jirkaaga wax badan ayaa ka dareemaysaa. waxaa kaloo ku jiro nitrikis iyo aksid iyo fitamiinaad, fitamiin C, waxyaabaha fitamiin C fitamiin A ku jiro aad ayuu jirkaaga u baahan yahay markaad jeceshahay inaad isticmaashadan wax ka ogaatid, kuwaas oo ballaarinayo xadid iyo dhiigaaga iyo isla markaasna kordhinayo socodkaaga iyo dhiigga yaraanta, dhiigga karka kaa yaraynaa wuu kaa caawinaya, dhiig karka kaa caawinaya, dhiigga yaraada kaa caawinaya, socodka kaa caawinaya, yacni inaad noqotid qof adag, inaad noqotid daraasad cilmiyeed oo ku saabsan faa'iidooyinka bayturaafka iyo yaraanta caabuqa iyo keliyaha iyo yaraanta xanuunada jilibka ku dhaco ama hagaajinta awoodeed maskaxda ku dhacdo iyo garasho la'aanta iyo isbedelada. wax badan ayuu dawo u yahay. intaasana kusoo ekeeyay my familygeyga, waa rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iidiin. wabilaahi towfiiq. intaasaan jeclaystay inaa bayturaafkaas faa'iido yar aan ku ogaado, aan jeclaystay inaa inala wadaago. waxaan rajeynaya inaa idinkuna ka faa'iidiin. soomaaliya nabad, soomaaliya guul. my familyga soomaaliya inaa duceeyaa jeclaa, soomaaliya guusheeda nabadeeda jeclaa, soomaaliya nabad, soomaaliya guul. ilaahay subxaana watacaala far iyo faraata iskaga kaaya dhigo, dad isjecel, dad isku xiran, dad wadankooda iyo dalkooda u hagaagsado isjecel ilaaha naga dhigo, cadowgana cagta hoostiisa. haddaad ka hesheena waa idiin soo badinayaa, haddii kalene sheekooyinka gadaalaan ku noqonaynaa my familygeyga. fikradiina iyo dhiirigelintiina idin kale aan ku aqaanaa, ma fahanteen? soo yaacahe.